السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinkaga diyaarinay gabadh lagu magacaabo Hodman Hibaaq Salebaan Cilmi oo qabsatay baraha bulshada indhaweydba. Waxaad barnaamijkeenan aad ku maqli doontaan oo aan ugu magac darnay xaqa muwaadinka iyo waliba xorriyadda hadalka. Waxaana barnaamijkeena aan ku soo qadan doonaa maxay tahay sababta wasaaradda warfaafinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay indhaweyd bahaysatay baraha bulshada, gaar ahaan wasaaraddu kadib markii ay soo saartay warqad aad loola tacajabay taasoo lagu sheegay in gabdhaha la dooranayo ay leeyihiin muuqaal gaar ah iyo waliba astaamo gaar ah ay ku dooranayso, taasoo baraha bulshada ka dhex dhalisay buuq aad u fara badan. Haddaba iyadoo arrintaas ay jirto oo wasaaradda warfaafinta xubno gaar ahaan TV-ga qaranka ay iscasileen, gaar ahaan tafatirihii TV-ga qaranka, ayaa haddana waxaa soo baxaya cabasho ka imaanaysa haweenka Soomaaliyeed ee shaqadoonka, kuwaasoo wasaaradda warfaafinta u soo shaqo doontay kadibna lagu dhahay ma lihdin astaamihii laydinku talagalay ama muuqaalkii ay ku xunayeen shuruudaha gaarka. Haddaba barnaamijkeenan xaqa muwaadinka iyo xorriyadda hadalka waxaanu ku soo qadan doonaa barnaamijyo aad u taxanaa kuwaasoo aanu idin bilaabi doono insha Allah tacaala. habeennimadii Jimcada gabadh lagu magacaabo habeennimadii Jimcada ee bishan aynu ku guda jirno ayaa gabadh lagu magacaabo Hodan Salebaan Cilmi ayaa waxa ay soo dhigtay muuqaal aad u cajaa'ib ah kaasoo ay kula dhaqmeen wasiirka warfaafinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo waliba maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Shube. Gabadhan ayaa waxa ay tiri in wasiir Maareeye uu ku dhahay malihid shuruudihii lagu talagalay iyo astaamihii sida oraah qabsatay baraha bulshada, taasoo ahayd hubqaad fiican malihid ama muuqaal aad u fiican malihid. Laakiin waxa ay noqonaysaa waxayna tiri maareeyaha tiyaatarkana waan u tagay waxa uuna igu dhahay malihid astaamihii lagu talagalay, adiguna waliba waxa uu ugu daray erayo aflagaada oo ku dhahay gabadhaasi aday u falxun tahay. Haddaba bal aan dhageysano gabadhan hadalkeeda ay ku dhaheen wasiirka warfaafinta iyo waliba maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Shube. oo meel nooga dhacay haddaan nahay gabdhii aqoon-yahanka ee waliba waddanka u dhashay sida Xayir Maareeye oo kaleeto waxaan ula ka sii daran ninkaan leeyahay Shube wixii ugu leeyahay aad baad u farxunta bal madaxweyne wajiga si fiican u fiir ma waayeel baanahay ma waxaan ahay naag farxin baanahay ninka quruxda badan baa dhalay aniga. Haddii aad daawatay muwaadin arrinkaasi ama hadalka gabadha Hodan Salebaan Cilmi maxaa kaaga baxay? wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo waliba maareeyaha tiyaatarka qaranka waa Abwaan Shube waxa ay noqonaysaa labadii mas'uul ee ugu horeeyay ee xil noocaas haya oo gabadh muwaadinad oo Soomaaliyeed ay hawada u marayso ereyadaas ay ku dhaxeen, waxaana mas'uuliyiintan oo haya xilal dawladeed iyo mas'uuliyiin culus ay fadeexad ku tahay ereygaasi ka soo yeeray gabadha muwaadinada ee Soomaaliyeed. Maareeye oo ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya ahna wasiirka wacyigelinta Soomaaliya waxa ay noqonaysaa wasiirka ugu horeeyay ee gabadh muwaadinad saas oo kala wada dhaqma. Maareeye ayaa waxa ay gabadhan Soomaaliyeed ay sheegtay saad maqlayseen inuu aflagaado xoogan u geystay oo ku xulay shuruudo gaar ah mana lehid buu yidhi astaamihii lagu talagalay. sidoo kale Abwaan Shube isna waxa uu intaas ku daray inay suurtagal ahayn marnaba inay ka shaqeyso ama ka shaqo bilowdo tiyaatarka qaranka iyadoo uu sheegay inay waliba gabadhaas ay aad u falxun tahay. waa sida uu hadalka u dhigay Master Shube. muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa si aad uga falceliyay ereyadaas ay ku hadleen labadaas mas'uul, waxa ayna sheegeen inaysan loo dulqaadan karin ereyadaas lagu hadlay waxayna bulshada Soomaaliyeed ugu baaqeen madaxda dawladda Soomaaliya inay talaabo ka qaadaan mas'uuliyiintaasi ku dhaqaaqay muwaadiniinta Soomaaliyeed. Master Maareeye ayaa wasaaraddiisa warfaafinta waxa indhaweyd ba ku sii galgalanaya fadeexad weyn kadib markii TV-ga qaranka uu baahiyay
inuu shaqaalaysanaya gabdho astaamo gaara leh waxa ayna noqonaysaa arrintii labaad ee kusoo baxda wasaaradda warfaafintu arrin waraaq ay soo saartay maalmo ka hor waxa ay ku sheegtay inaysan jirin waxyaalahaasi lagu faafinayo baraha bulshada waxayna sheegtay in lagu dacaydeynayo laakiin tan waxay ka markhaati kacaysaa inaysan wasaaradda warfaafintu ay weli kula jirto dhiiqa lugaha guud ahaan intaa waxaan kusoo gabaynaa qaybtii koobaad ee barnaamijka xaqa muwaadinka iyo waliba xorriyadda hadalka waad kala socoteen Joker News waxaana inoo haray qaybo badan oo aan idiin soo wado insha Allah waana mahadsantihiin daawadayaal